السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بهابين وناكسن سيدي عن هربا وشاعني عاو وحينو كهالي دونا أرحم الله حريرا وحبار الشدع قارهان سامينتا و COVID-19 كويا شي حبكي يهنانكي وحبار الشدع عاو كنتي وحينو مرتي دكتور شمس الدين أبيكر oo ka mid ah macallimiinta iyo howlwadeennada muddo ka shaqaynayay waxbarashada carruurta Soomaaliyeed ee weliba magaalada Bristol intii uu joogay ciyaalka la shaqaynayay runtii waxbarashadiisa heerka kala duwan ku dhamaystay ilaa iyo cilmi baaristiisii ku sameeyay heerkii ugu sarreeyay ka gaariyay dhinaca waxbarashada sidaynu ka warqabno runtii COVID-19 uu bedelay oo uu runtii kala dhantaalay wax kasta oo aynu naqaanay oo socday hadday xaggii shaqada noqoto hadday xaggii caafimaadka noqoto shaqadii oo dhinacyo kala duwan leh hadday noqoto shaqooyinkii caafimaadka kuwii ganacsiga diyaaradihii dhinac walba maanta haddaba waxa weeyaan bal waxaynu eegi doonaa saamaynta uu ku yeeshay waxbarashada habsami socodkeedii gaar ahaan waxbaristii iyo waxbarashadii ciyaalka teaching and learning waxna af qalaad lagu yiraahdo waxaan jeclahay caaw inaan su'aalo badan runtii halkan aan ka weydiiyo idinkuna qoraal ahaan ku soo weydiiya waan u gudbin doonaa Dr. Shamsuddin soo dhawow maasanid cabdi waa dhawe marka hore waxaan filayaa waxa ahayd baan u malaynayaa maalintii ugu dambeysay ee aynu barnaamij ka wada qaadano 5 sano ka hor inagoo ka hadlaynay waxbarashadii carruurta Soomaaliyeed ee magaalada Bristol haddaad bal daqiiqad ama 2 daqiiqadood aad ka tiraahdo maalintaa isugu keen dambeysay iyo ilaa iyo maanta oo uu COVID in haleelay geedigii waxbarashada carruurta Soomaaliyeed sidee buu socdaa halkii maxaa isbedelay ku yimid bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم عبدي انت أنا أقدر جوابته وحن جعلان لها محير إن قدر النقطة تاريخ عن محايته قدر النقطة تاريخ سوقلتان كي الصومالي وطن كان يوهب كوطن كان سيقول نقطة قون ديك وحيابا أنك حضلين marka haddii aan ka soo bilaabo soo geetaankii Soomaalida meeshan ummad markay soo qaxdo oo ay timaado wadan kale waxay la timaadaa kayd ay wadato kaydkaas ama raasmaalkaas wuxuu noqon kariyaa mid dhaqaale mid aqooneed oo dhinaca diinta ah ama mid dunya ah mid dhaqan ah dhaqankoodii iyo luqadoodii marka kuwaasoo saameyn ku yeelanaya marka jiilka dambe ay dhali doonaan markaan soo qaxnay oo aan nimid wadamadan marka maxaan wadanay su'aasha waa taas marka dad fiirisid annaga markaan soo qaxnay Soomaali ee guud ahaanba badankeen wax dhaqaale ah lama imaan wadankan lama imaanin aqoon dadkeena badan dadkeena yaraa ee aqoonta la yimidna shahaadooyinkoodii ma ahayn wax inta laga aqoonsan yahay marka waxay ku qasabtay inay wax meel kale u laabtaan aqoonta diinta marka la fiiriyana aadan ugu liidanay runtii marka waxyaabahaas oo dhan markay isbiirsadeen dhaqanka marka la fiiriyo dhaqankeenina maxaa ahayd luqadii ayaa wax la taaban kara oo aan la nimiday meeshaana luqadaasoo ah mid un maxaa ahayd verbal ama maxaa ahayd afka un laga gudbiye ah marka intaasoo dhan oo dhibaato ah iyadoo ayna haysato ayaan maxaa ahayto inta nimiday inta markaan nimidayna wadankan isagana sidaad la socotid waxbarashadiisa maxaa ahayto dabaqada ayay kala lahayd waagii hore oo dabaqada sare carruurtooda sida wax loo baro dabaqada hoose looma bari jirin marka 1998 ayay waxay samaysteen curriculum ama manhaj mideeya waxbarashadoodii curriculumka markii ay samaysteen waxaa samaystay England iyo Wales Scotland iyo maxaayto North Ireland kuma jiraan marka iyadoo ay jirto taas xataa weli waxaa jiray farqi u dhaxeeya carruurteena iyo carruurta dadka maxaayt shaqaalaha oo la yiraahdo dabaqada hoose ah iyo carruurta kale mar walba
marka waxaa jira waxyaaba la yidhahdo saad ula socotid equality and equity. Equality waa maxay ahayd sinaanta, equityna uma hayo luqadda Soomaaliga kelimad, laakiin waxaan dhihi karaa sinaanta loo meel dayay. Kasoo qabo haddii hadda aan tusaale kasoo qaado laba canug oo midna dheer yahay midna uu gaaban yahay, laba canug oo midna uu gaaban yahay oo midna uu dheer yahay, haddii aad tirahdid meeshaas gaara soo taabta, aad tirahdid maxay ahayto kan dheer wuu taaban kariyaa kan gaabanna ma taaban kariyo, laakiin adiga sinaan ayaad samaysay oo amarka aad siisay waa sinaana, waxaad tiri meeshaas gaara. marka waxaan odhan karnaa equity-gu waa agabkii tooliskii sinaanta sii simayey loo simayey, taasaa la dhihi karaa. marka haddaan pointiga ugu dambeeya, nuqdada ugu dambeeya arrintan aan soo gebagabeeyo, tusaale aan bixiyo. sanooyin ka hor waxaan la aqrinayay book English ah, canug Soomaali ah. canugii buug wuxuu ku saabsanaa dad safar ka yimid oo boorsooyin wata oo taxi ka soo degaya. marka iyadoo saas tahay, marka canug markaan la aqrinayo mar walba waxaan aniga aan aad maxayto u fiiriyaa inay fahmeen waxa la yidhahdo wadciga ama contextka, because maxaa yeele haddii uusan contextka ama wadciga uusan fahmin bilowga hore canuga, si uu ku fahma waxii oo dhan waa aad u dhib badan tahay. marka canugii ayaan waxaan weydiiyey boorsooyinka sababta ay u wataan dadkii, markaasuu ugu yiri ma aqaano yiri waxay u wataan boorsooyinka. markaasaan waxaan iri weligaa diyaarad ma ku safartay? markaasuu yiri maya. markaasaan waxaan iri magaalada Bristol ku dhashay. markaasaan waxaan iri London ma u safartay? markaasuu yiri maya. markaad fiirisid canugaas iyo canug sanad walba ee waalidkiis ay dibadda geeyaan oo diyaarad ku safra, haddii aad buuggaas u dhiibtid oo aad tiraahid labadiina waxaad tihiin isku fasal, waxaad tihiin maxaa ahayto isku da' buuggan akhriya, imtixaan ayaan idinkaga qaadaya, haddaad tiraahid maxaana jirin marka equity-ga. marka taasaan kusoo gabagabayna. marka dhibaatooyin badan iyadoo ay jireen ayaa covidka haddana oo yimid oo arrintii xoogaa waxaad u malaysaa haddana inuu kala sii fogeeyey. aad baad u mahadsan tahay Shamsuddin. waa run waxbarashadu cilmi baarisyo badan baa badanaaba sidaad aragtay laga sameeyaa waxbarashada carruurta. runtii ilmuhu luqadda uu guriga kala yimaado, weeraha uu guriga kala yimaado, iminka sidaad sheegtay ilmana wuxuu gurigii ka imanayaa isagoo garanaya waxa uu safar ku yahay oo hadal ahaan u garanaya, weer ahaan u garanayo. ilmana mabuu safrin weligiiba. marka midna already ereyadii uu isticmaalayay vocabularygiis baa dhisan, midna ma dhisna. weliba waxaan doonayaa inaan halkaas su'aal la xidhiidh ka jirto. waxaa jirtay maalin dhaweyd warbixin ay soo saareen baarlamaanka UK. weliba waxaa soo saaray bishii December baa la qaaday, waa maalin dhaweyd soo baxay all party parliamentary group on oracy. marka waxay ka hadlaan, waa qolooyinka ka hadla waxaan la yidhaahdo vocabulary, knowledge, narrative skills and active listening. haddaynu inta af Soomaali ku nidhaahno dee aqoonta uu qofku u leeyahay erayadan uu isticmaalayo, sida uu xirfadda uu wax ku sheego, iyo sida uu u dhegeysto. dhegeysigoo keliya maaha, waxaa loo baahan yahay inuu si firfircoon wax u dhegeysto oo uu feejignaado markuu ilmaha dhegeysanayo. haddaba imika iyadoo aad saa sheegtay oo already ay sinaantaas jirto oo ilmaheenii marka horeba waxbarashadoodii halkaa ka liidatay, sida aad sheegtayna aynaan aqoon badan, inteennii aqoonta yarayna aan la aqoonsan baynu dib u soo bilaabanay. saamayn intee leeg ayuu COVID-19 ku keenay, maadaama iminka iskuulladiina la xiray, carruurtiina online wax looga dhigayo? صح اوكي بسم الله sida aad sheegtay luqadda waa waxa ugu weyn ee lagu fuliyo waxbarashada. haddii hadda aan ka soo qaado tusaale aan tusaale u soo qaata guri la dhisayo, khabiir uma ihi, laakiin dad khabiir ah jira. laakiin haddaan ka soo qaato, marka la dhisayo guriga wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa in qofka dhisayo uu fiiriyo carrada uu ka dhisayo nooceeda, inay jilcan tahay, inay adag tahay, inay celin karto xajmiga waxa uu dhisayo,
kadib markuu intaas ogaado inuu aas-aaskii dhigo ou laynki sameeyo dhagaxyadii isku aadiyo oo uu dul saaro maxaa ahayto shamiito oo haddana layn kala saaro intaasna uu fiiriyo in maxaa ahayto uu toosan yahay marka waxyaabahaasoo dhan marka la fiiriyo waxyaabaha lagu sameeyo waa luqadda maxaa ahayto galaaska falastarka markaa ku jirtid oo kale markaad ilmihii wax baraysid anigu marka uu yimaado waa inaad ogaataa marka ugu horeysa inaad samaysid qiimeyn aad ku samaysid meesha uu joogo si aad ugu dartid layn kale aad u dhistid waxbarashadiisa marka dhibaatooyinka imaan kara waxaa ka mid ah haddii macallinka iyo canuga ay kale luqad duwan yihiin macallinka dhib ayay ku noqonaysaa marka ugu horeysa inuu ogaado canuga meesha uu joogay haddii uusan ogaanin meesha uu canuga joogayna waxbarashada dhib ayay noqonaysaa ama wuxuu barayaa wax uu yaqaano ama waxuusan fahmaynin ayuu barayaa waqti badanaa meesha ku khasaaraya marka luqadda aad ayay muhiim u tahay luqadda marka taas iyadoo ay jirto waxaa kaloo dhib keenaya oo carruurteena badanaa aan ku arkay iskuulo badan aan kasoo shaqeeyay aan ku arkay guriga markay luqadda kala yimaadaan luqaddii soomaaliga way daciifaysaa iskuullada marka ay bilaabaan ingilishka ayaa xoogga la saaraya ingilishka xoogga markii la saaro luqaddii aad daciifaysa marka taas maxaa ahayto literatureka waxay yidhahdaan cilmi baarista waxay yidhahdaan subtractive bilingualism macnihii luqaddii oo dhumaysa oo maxaa ahayt oo nusqaamaysa oo awooddeeda nusqaamaysa taas dhibaatay ku keenaysaa carruurtii maxaa yeelay waxay dhibaato u keenaysaa haddii canuga dhinaca kale luqaddiisii iyo culturekiisi isagoo haysta uu yimaado dugsigii oo luqaddan ku sii daro faa'iide ayay u keenaysaa maxaa yeelay fikradda ama conceptigii ayuu awoodi karayaa inuu labadii luqadood uu ku bedesho si uu wixii u fahmo markaas xataa waxaa la yidhahdaa ilmaha halka luqad yaqaana ee waddanka u dhashay waa ka jaanis fiicnaanaya awooddiisa maxay aqooneed marka aad ayay muhiim u tahay taasna dhinacaasna dhib ayay naga haystaa marka luqadda marka loo soo noqdo luqadda naftirkeedii fahamkeedii ayaa waxaa kala jira marka oo macallimiinta qaar ay laga yaabaa inay maxaa ahayto aysan fahmin waxaa jirta laba luqadood ayaa kala jira canuga markuu luqadda baranayo luqadda labaad uu baranayo soomaaliya uu soo bartay markuu yimaado luqadda kale uu baranayo dugsiga u yimaado luqadda marka uu baranayo canuga waxay ku qaadataa la yidhahdaa ilaa iyo 2 sannadood inuu luqaddii si fiican ugu hadlo oo carruurtii asxaabtiis ahayd uu la ciyaaro oo maxaa ahayto wixii uu rabo uu ku sheegto laakiin dhibka jira wuxuu yahay taas ma aha tan la rabo taas waxaa la yidhahdaa social language academic language kaas waa ka dhibka keenay academic languageka inuu fahmo cunuga academic languageka waxaa la yidhahdaa wuxuu qaataa 5 sannadood ilaa 7 sannadood canuga inuu aad u barto marka academic haddaynu af soomaali ahaan ku sharaxno waxa weeyaan waa luqadda wax lagu barto maxaa yeelay luqadda socialka ama bulshada waa tan maxaa ahayto waxaa ku caawinaya waxyaabo badan waxaa ku caawinaya sawirada ku caawinaya waxaa ku caawinaya farta in lagugu fiiqo tilmaamaha ayaa ku caawinaya waxyaabo badan ay kaa caawinaysa laakiin luqadda academiga marka la yidhahdo waa cashar qoran oo aan sawir iyo waxba lahayn oo la rabo inaad maxaa ahayto aad ogaatid marka waxaa ku dhex jirta fikir inaad conceptskii inaad fahamtid marka adigoo taas ah ayaa haddana waxaa ka sii daran wixii haddaanan fahmayn hadda haddaan kasoo qaadno sanadkii si fiican uma xasuusta 2015 inay ahayd ama inay 2016 ahayd mid ay ahayd ayaa casharka imtixaanka fasalada 6aad ee saatska kii stage 2ga aqrintiisa ayaa waxay ahayd inay sharxaan inay akhriyaan text ku saabsan waddankii Mauritius inay ahayd umalayna Mauritius jasiiradaas ayaa jooga oo adigu safar ku saabsan marka sida hadaayad sheega oo kale aaday dhib ugu noqonaysaa carruurteenni oo dadkeennii aan lacagta haysanin oo carruurtooda ay safri karin oo aanan meel geenin inay fahmaan sida aad sheegtay vocabulary-ga loo baahnaa inay fahmaan kadibna eegaan marka waxaa jira hawlo badan ayaa jira marka covid-ka haddaad fiirisid marka sida uu noo saameeyey markaan fiirino waa inaan fiirino horta waxbarashadii sida ay tahay
waxbarashadii waxay saameynaysaa badanaa waxay saamaysaa 3 dareeme waa dareenka aragga waa dareenka maqalka iyo dareenka taabashada 3daasaa la sameeya si ilmihi wax lagu baro waa kala gedisan carruurta siday wax u baranayaan marka macallinka shaqadiisa ma aha inuu awoodo inuu ilmaha wax fahamsiiyo ma aha macallinka waxaa dhacay shaqadiisu markuu meesha istaago uu hadlo hadalka ka soo baxo wuxuu gaaraa maqalkii canuga ayuu gaaraa maqalka canuga marka uu gaaro intaas ka badan awood uma laha macallinka inuu wax sameeyo dhegta laga bilaabo maskaxda processka ay samaynayso waxaas la sheegay ay ku fahmayso taas maskaxda ayaa ku shaqale waa tan marka imaanaysa qad axaada allahu bikulli shayin cilman wax walba ilaahay cilmiga 100 milyan oo neuron ay ka kooban tahay ayaa la yidhahdaa maskaxda marka neuronskaas oo samaynaya connectionno badan ayay ku xiran tahay marka macallinka isaga shaqadiisa oo keliya waa inuu maxaa ahayto facilitator ama maxaa ahayto opportunity uu soo bandhigo inuu hubiyo cunugan inuu si fiican u maqlay wixii uu sheegay inuu u arkay iyo hadhow inuu hubiyo inuu wixii fahmay intaas oo keliya marka waa 3 qayb qaybtaas macallinka afkiisa ka soo baxaysa ilaa ay dhegta ilaa ay maskaxda iyo jaagaraynta ama hubinta macallinka marka dambe marka labadaas macallinka labadaas shaqadiisa labadaasay noqonaysaa laakiin waxa meeshan ka socdo iyo operation processkaas awood uma laha marka iyadoo ay taas jirtay ooba maxaa hayto markii hore dhibkaas jiriyo habkaas fahamkaas iyo luqadiyo adag iyo maxaa hayto waxyaabo badan iyo tan kaloo jirta oo aan arkay waxay tahay oo aniga aan aaminsanahay carruurta waxay u baahan yihiin khaasatan carruurteena iyo carruurta dadkan shaqeeyo faqriga waxay u baahan yihiin fasal kooban yar tiro kooban ugu badnaan 15 ilaa 15 aad ay noqon kartaan dhihi karaa laakiin ka badan marka 15 ma fasalada waa 30 marka aad haddana dhib ugu noqonaysa marka iyadoo intaas ay jirtay ayaa hadda marka covid la sii galay xataa waxaa la tegay guryihii ayaa ilmihii ay fariistaan guryihii markay ay fariisteen waxaa loo baahday marka 2 arrin baa loo baahday qalab waa loo baahday oo maxaa ahayd aaladii oo macallinkii iyo fasalkii iyo maxaa ahayd accesskii xataa markii aaladda aad heshiis accesskii marka dowladdu way ku dadaashay inay siiso maxaa ahayd qalab ay siiso dugsiyada ilaa ay heer carruur la siiyey way jiraan carruur ugu jiro maxaa ahayd weli fayl ugu jiro sugaya arrintaasna way jiraan marka haddii ay helaanna waxay haddana u baahan yihiin internetka haddana connection oo isagana lacag ah marka heerkii dhaqaalaha qoysku oo markii horeba qayb ka ahaa dhismaha waxbarashada ilmaha ayaa iminkana qaybin ka sii qaatay oo in loo baahdo mataqaanaa aaladihii la isticmaalayay hadday laptop hadday tablets noqoto iyo inay helaan wixii xidhiidhinayay oo ah internetkii waa runtaa aad baa looga hadlay dowladaha macallinka keliya kuma filno maxaa yeele macallimiintii hadda fasalladii joogaan oo carruur kale ayay hayaan marka waqti yar uu helayaa marka waxay qasab noqonaya haddana in macallin kale oo ay lacag siiyaan waalidkii u dheeraada marka culays badan ayaa bulshadeena sida aad sheegtay horta luqad waa muhiim allah raxmi gabayadii gaariyay ka mid ahayd afku nolosha wowtiir yani waa وعلم الآدم أسماء كلها ساتيكس وأنا دبا وحنا يالا إلهي أنا حاسة جاري لبتي سابين وبريستال نقص مري وابنو حوجا سيجوني ويرى شكيسنا أنا قدورة عروت حبر شو ذا كلا شكيسني عليه أن قري واحد كم ذا ورهدانو علمه لقطبة ما حتى لغة الصومالية هدانو لقطبة قاني كان نقول وأنا كدرك سنين سيدابو وحب برنا علمه هدانو حتى في الصومالي أفكيس هو يعني قاني هاي ما شو دونا بهالجو marka waxaan baran karo runtii waxbarashada waxbaa la socda Dr. Shamsidin ta iskuulka kaliya ama tan academic aad tilmaantay ma aha kaliya ilmaha waxa garaadkiisa kobciya social skills xirfadihii bulshada xirfadahaas waxa ku dhismaan waxyaalaha ku lamaan sida ciyaarta oo kale
iskuullada kale tagaan dugsi quraanka ay tagaan waxaas oo dhan maadaama maanta haddaba carruurteennii ood saa sheegtay aynana ku jirno waqti lockdown oo guryihii lagu xaraysan yahay taasi saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa weliba waxaan doonayaa inaan eego dhinaca xal ma u heli karnaa arrimaha si aanay carruurtii dib u dhac uga iman oo loo yareeyo dib u dhac fara badan inaanu ku iman kolley way dhacayaan wax laakiin inaanu dib u dhac fara badan ku iman see baa loo yaran karaa waa adag tahay taas aad u adag tahay marna dhinacii dhaqaalaha markaad ka fiirisid xoogaa waa adag tahay covidkina dadki ayuu xayirayo haddana gurihii ayuu kusii xayiray taasna dhib ayay keenaysaa waaran horta waxbarashada sida aad sheegtay dhaqaalaha aad uu muhiim ugu yahay waddankan aan joogno maxaa yeelay haddaad kasoo qabatid carruurta marka ugu horreysaba ay bilaabayaan nursery ama receptionka ay tagayaan waxyaabaha ay ku ciyaaraan ilmihii haystay qalab badan oo ay ku ciyaaraan oo gurigiis u yaalay iyo aaday maxaa hayto oo ugu fududaanay wixii marka la fiiriyo canab aan weligiis aan ku ciyaarin marka taas naftirkeeda waxay keenaysaa qalabkaas ay ku ciyaarayaan iyo waxyaabahaas ay ku ciyaarayaan waxaa dhisanta maskaxdoodu sida aad sheegtay cognitive skillskooda ayaa dhismaa marka aad ayay muhiim ugu tahay laakiin hadda la joogo dhaqaalihii iyo sidaas ah maxaa hayto iyo guryihii aan ku jirno waxaan filaa inaan dib inta iskugu noqonno aan baaritaan samayno iyo wixii aan ka samayn karna arrintaas aan fiirino ayay noqonaysaa cabdi aad u mahadsan dr shamsin waa runtaa kolley casharo badan baynu ka baranaynaa casharo badan baa inoo socda weliba inaynu ka qayb qaadano cilmi baarisyada la samayn doono marka culayskan yiraahdo waa run habeen dhaweyd 2 hablood oo ka mid ah hablaha magaaladeena horta hooyooyinka da'da yar weliba xoog bulshada ula shaqeeya Samiira Muuse iyo Hiba Rooble ayaa halkan joogay waxyaalaha ay ka sheekeeyeen waxa ka mid ah in maanta waagi hore ciyaalku ay iskuulada hooyooyinka weliba waalidiintu iskuulka intay geeyaan ka soo kaxayn jireen laakiin maanta ay qaar badani loo baahan yahay inay iyagii dul taagnaadaan oo gurigii markuu ilmaha wax ku dhex dhiganayo in aanu boodboodin ay wixii dhigtaan oo ay la socdaan marka ma laga yaabaa arrintaasi inay xiriirkii waalidiinta iyo iskuullada ay sii hagaajiso oo halkii hore ee waalidiintii aynu la bari jirnay oo kale si weyn ognahay Bristol warkaaliyo iskuullada la shaqeeya ama evening parentska habeenka ardayga wax qabashidiisa laga hadlayo ay adkaan jirtay inay wada yimaadaan ma laga yaabaa waxyaabaha togan ee ka soo baxay COVID-19ka in uu noqdo inay fahmaan sida iskuulladu ula shaqeynayaan horta runtii waxaa jira maxaa ahayto waalidiinta malaha eedda ma wada aha maxaa yeelay waalidiinta aad ayay u jecel yihiin badankood soomaalida runtii waa lagu ammaanaa iskuullada sida ay u rabaan carruurtooda inay meel gaaraan aad waa maxay bulshada runtii waxay ka mid yihiin bulshooyinka lagu ammaano inay jecel yihiin in ilmahooda iskuul ay meel gaaraan waana ka sameeyin soomaalida waalidkooda oo dhan laakiin dhib ayaa jira oo dhinacii gurigana culays ka jira ama aqoon la'aan ay jirto tan kale literatureka waxay sheegaan in soomaalida ay u haystaan sidii waddankoodii oo kale oo cunuga iskuulka inta la geeya macallinka shaqo kula la dhihi jiray iyo iskuulka oo ay u haystaan meel aan la geli karin marka wacyigelintaasna aad ayay muhiim u tahay horto inay fahmaan maxaa hayto inay ka mid yihiin shuraakada waxbarashada canugooda ay ka mid yihiin oo iskuulka keliya aan iyagana qayb ka yihiin tan kalena maxaa hayto waalid le intaasoo canug runtii aaday dhib ugu noqonaysaa inuu maxaa hayto la shaqeeyay dugsiga uu la shaqeeyay marka runtii aadayna arrintada aniga maxaa researchigayga maxaa hayto aan hadda doctorate-ka aan ku samaynayay waxaan fiiriyey maxaa hayto markaan aan dooranayay topic aan qaato inaan ka sameeyo researchiga waxaan fiiriyey maxaa anfici kara bulshada Soomaaliyeed ee Bristol maxaa anfici kara iyo carruurtoodii marka waxaan qaatay oo aan doortay inaan luqadii Soomaaliga aan baro carruurtii luqad Soomaali ahaan aan baro
kadib markay bartaan iyaga iyo waalidkood hal fasal iyaga markay bartaan kadib ayaan waxaan sameeyey marka englishkii topicadii englishka ay qaadanayeen caruurta kii stage 2 oo maxaa iyo kii stage 1 adjective verb adverb wixii ahaa ayaan waxaan u bedelay maxaa ahayto Soomaali markaasaan waalidkiina aan baray caruurtiina aan baray runtii aaday maxay ugu faa'iideystaan waalidkana runtii aaday ugu faa'iideystaan oo maxaa ahayto kasoo qabo waxaan maxay markaan barayay verb oo kale markaan aan dhigo waxaan dhigayay ficil markaasaan intaan practice furan dhahay verb labadii aan isla barayay marka waalidkii waxaan rabay inaan awood u siiyo inay ogaadaan hadhow carruurgooda markuu baro iskuulka ka soo noqdo uu yiraahdo verb ayaa laysoo diray inay ogaadaan waxa uu yahay carruurtana runtii aaday maxay ugu faa'iideen waxaana dhismay moraalkoodii markaasay maalin gabagabadii researchiga markaan sameynay ayay waxay yiraahdeen jaamacadaada ma tigi karnaa ma tusi karnaa waxa aan baranay Soomaaliya markaasaan xoogaa aniga shakiya jaamacadda ana ma dhigtiyo maxay ahayd waa research aan sameeyaa waxaan u tagaa supervisoradeyda bishiiba maraan u tagay markaasaan bal waa kasoo fekeraa waxaan la hadlay supervisoradeydii markaasay waxay yiraahdaan waxaa jiraba EL wax la yiraahdo conference dadka luqadda labaad baranayo conference oo laga qabanayo ayaa jira jaamacadda lagu qabanayo waaba u baahanahay arrintaas carruurtii aan meesha lagu cazumay marka waxaan u diyaariyey sheeko aan Soomaali oo aan sameeyey oo nin maxaa ahayto aan ugu magac daray ninkii askarigii caqliga badnaa oo nin masaakiin ah oo tuugsadayo rooti uu soo siiyey nin inuu tago maxaa ahayto maqaayad carafteeda ku cunayo maxaa ahayto rootigii oo markaasuu nin intuu baxo uu soo sheegaa ninkii meesha lahaa uu leeyahay ninaa kaa cunayo caraftii oo intuu yimaada qabsanayo oo leeyahay lacagta isii uu leeyahay ani maxaa kaa cunay markaan lacag ku siinayo markaas loo yeerayo booliiska dhegeysanaya markaasuu intuu shilin kasoo bixiyay jeebka uu wareejinayo meesha ku wareejinayo uu leeyahay ma maqasho markaas uu leeyahay caraftii uu kaa cunay lacagteeda waa taasa uu leeyahay marka carruurtii aan Soomaali ahaan ku baray mid walba qaybtiis ayaan siiyey meeshii aan geeyey meeshii sameeyeen af Soomaali ay ku sheegayaan marka meesha waa la buuxay marka conference way dhageystaan way sameeyeen markay sameeyeen ayaa marka anug markay dhameeyeen anug soo baxay wuxuu yiri marka waxa aan sameeynayni sheega markaasay isku noqnoqdeen mid buu wuxuu iska sheegay waa ma yiraahdeen markii daba loo sheegay oo English ugu fasiray markaasay aad ula dhaceen marka waxay ku tusinaysaa carruurteena heerka ay marka ay yiraahdaan jaamacadaada aan waxaan ka sameeyno haddana markaan geeyey supervisoradeeda ay arkeen oo loo sheekiyey kulligood waraysigii daba aan ka qaaday waxay yiraahdaan maxaan rabnaa inaan nimaadno jaamacadan aan galno markii aan maxaa ahayto aan marka waxaad arkaysaa carruurteena fursad inay la yihiin laakiin haddii fursaddaas ay helaan ay duulayaan ayaad Shamsuddin waa runtaa in carruurtu marka ay da'yar yihiin ay tagaan goobaha waxbarashada sida jaamacadaha ay booqdaan ama ay booqdaan xafiisyada waaweyn ee kambaniyada waaweyn leeyihiin shirkadaha waaweyn runtii waa wax aad iyo aad u muhiim ah 2 sanadood ka hor ayaan qolo la yiraahdo Set Square Bristol oo ah qolooyinka waxaan incubatorka loo yaqaano businessyada caawiya ee weliba dhinaca technology-da cusub la dhisa ayaan cilmi baaris sameeyay cilmi baaristaasi waxay eegaysay sida ay ula shaqeeyaan dadka laga tirada badan yahay nimankii maamulayaasha kamid ahaa baan nagu yidhi maalmood waxaan akhriyay warbixintu waxay tiri haddii ilmuhu inta uu iskuulka ku jiro daadu doonahaade uu 3 ama 4 mar booqdo xafiisyo waaweyn shirkado waaweyn waxay ku dhalisaa inuu ilmahaasi doono inuu halkaa tago uuna ka shaqeeyaa marka dambe sida aad sheegtay dhaqaalihii de marka aynu inagii runtii aynu shaqooyin hoose u badannahay carruurtiina aan fursaddaa la siin qasab maaha inaad ka shaqayso meesha laakiin inaad geyso meelaha waaweyn ku xidho dadkoo kale waa very muhiim inta aanan qaybteenna kale u gelin su-aal baan halkan ka soo qaadaya runtii oo ah dhowr qof baa su-aalana weydiinaya horta dhammaantiin waan salaamantihiin salaantaan waan idinka wada qaadnay maxamed jaamac wuxuu leeyahay waan salaamayaa laakiin buu yidhi maxamed wuxuu yidhi waxbarashadu da' ma laha ya
maadaama aanay waxbarashada da' lahayn maxaa u diidaya waalidiinta maxaa waalidiinta ka hortaagan in ay caruurtooda iyaguna wax bartaan caruurtooda mataqaanaa si ay u taageeraan ciyaalkooda arrintaa maxaad ka odhan lahayd Shamsuddin wallahi horta waa aad ay muhiim u tahay waana arrin aad loogu baahan yahay laakiin micnihii annagii dadkii waaweynaayo Bristol ayaad runtii ama ingiriiska waddanka ingiriiska jooga ayaad u malaysaa inaan ka gaabinay haddaad kasoo qabatid Bristol oo kale annaga hadda aadaan ugu badannahay waxaan filayaa inaan nahay bulshada laga tirada badan yahay kuwa ugu horeeya ugu badan soomaa marka aan saas nahay haddii aan xooggeena aan midayno oo aan tagno Bristol City Council waxyaabo badan programyo badan ayaan ka samayn karnaa oo sidii waalidka loogu taageerayo waxa igu horeeya oo aad ula walwalaa waxay tahay oo aad loogu baahan yahay waxay tahay in waalidka la baro waxyaabaha xaqa ay ugu leeyihiin caruurtooda iyo caruurtu waxay xaq ugu leeyihiin waalidka waxay aad ugu walwalaan markay iskuullada yimaadaan oo dhow xiriirka iskuulka iyo waalidka kala dhantaasha waxaa ka mid ah waxay waalidka u malayaan iskuulka inay caruurta ka qaadanayaan oo social worker iyo waxaas ay yihiin marka taasaa aad muhiim ugu ah in waalidiintii loo furo aqoon isweydaarsi arrintaas ku saabsan oo ay u helaan kalsooni ay u helaan inay caruurtooda siday ula dhaqmi lahaayeen waalidiin badan waxaan arkay aniga hadda ka hor yiraahdeen canuga lama hadli karno haddii aan la hadalno iskuulkunu sheegayaa iskuulkana waa naga qaadanaya marka taas ayaa loo baahan yahay sanooyin ka hor waxaan filaa 2007 iyo 2008 meelanka akhrinayay naag jarmal ah ayaa canugeedii waxay kusoo qaaday bishkileeti baaskiil gadaalay soo saartay canugu waa 3 jir canugu fanaad yaro garana ugu jirto wax kale ugu jira male qabow xunna waa dhacaya baraf booliiska istaajiyeen booliiska qabteen waxaa la yiri canugan xuquuqdiisii ayaad meel ugu dhacday waa la qabtay meeshii la geeyay stationka la geeyay canugan xuquuqdiisa meel ugu dhacday markaas tiri xuquuqdiisa meel ugu ma dhicin maxaa yeelay aniga waxay tiri lawyer ayaan ahay sharciga maxay ahayd caruurta November 1989 qodobkiisii 12 wuxuu leeyahay canuga haddii uu sharxi kariyo fikirkiisa uu sharxi kariyo waa in fikirkiisa la maqlaa marka canugu waxay tiri markaan soo baxay wuxuu yiri ma rabo kan aan raba intaan ku baxo marka fikirkiisa ayaan qaadanayay tiri waxay noqotay in la iska dhaafo marka waxaad dareemaysaa marka aqoontii markaad taqaanid waxaad sharci u leedahay iyo waxaan sharci u lahayn xogaa geesinimo ayaad yeelanaysaa marka waalidiinteena horta dhinacaas aad ugu baahan yihiin iyo intii kale ee maxamed jaamac uu sheegayo oo kale sidii caruurtooda taageeri lahaayeen Shamsuddin Dr. Shamsuddin waa runtaa Children Convention waxaan jeclahay inuu ahaa Convention of Children's Rights Convention of Children UN Convention of Children's Rights waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ahaa in ilmuhu loo ilaaliyo diintiisa iyo dhaqankiisa in xitaa ilmaha qodobka 7aad inuu marka waxa weeye runtaa in waalidiinteena la baro waxa ay xaqa u leeyihiin si ay caruurtooda xuquuqda ugu ilaaliyaan waa run marka aanad luqadiisi fiican uga dharagsanayn diintiisii dhaqankiisii iyo weliba identitygiisii aqoonsigiisii in la ilaaliyo ayaa muhiim marka waa runtaa in taana la sameeyo waxaan doonayaa oo kale commentska meel daahir waxay leedahay السلام عليكم وعليكم السلام waxay leedahay runtii waalidiintu waa inay tusaale u noqdaan caruurtooda si ay u gaaraan awood buuxa ay u helaan ciyaalkooda oo waayo ilmihii waxa laga yaabaa inaan full potential ba gaarin waa runtaa si aan u helin iyo in ay mataqaanaa ay iyagu mas'uul ka noqdaan waxay tiri weliba inay ownership ka inay iyagu mas'uul ka noqdaan waxbarashadooda yaa say ciyaalkoodii وانا تيم محمد شيقي دي من جوابتي وانا اهل له باهين waxaan gadaal ugu noqonaysaa abdi aan ka dhaxgale kaydkii aan haysanay markaan imaanay oo waxba ah taas waa tan aad gadaal noogu dhigayso laga yaabee caruurta annaga aan dhalnay second generation kuwa ay sii dhalaan third generation inay saas ugu dhaqmaan laakiin annaga xoogaa waa arrintii marka waa runtaa
absolute social and capital muxuu ahaa asadkii aynu la soo galnay raasamaalkii kaydkii aynu la nimid waxaa tiri dhaqankeenun buu ahaa diinteenu xitaa iminkaad moodaa inaynu xoog sii baranay si aad sheegtay waa dhab oo aad iyo aad dee aaladahan xitaa badan dadku u sahlayaa may jirin iyo waxaa tiri wuxuu ahaano luqadii oo ah xaggii afka oo aynu weliba hadal ahaanin qoraal ahayn marka taasina waa runtaa marka in laakiin iminka laga baaraandego sidii loo hagaajinaa ta aan doonaya tayn ugu dambaysa doonaya inaan galo waxa weeyaan isbeddel baa dhacay covid-19 isbeddel buu keenay dhinac walba inaga saameynaya hadday shaqo noqoto hadday waxbarasho noqoto xitaa sidii aynu bulshada xiriirkii bulshada ay noqoto ayuu keenay dibna looma noqonayo iminka cid walba waxay ka fekeraysaa oo mar galabta xitaa eegayay oo ay dowladdu xitaa lacag badan gelisay cilmi baaris badan in lagu sameeyo sida uu dhinacii caafimaadka waxbarashada u saameynayo taasina waxay u baahan tahay hoggaan hal abuurnimo innovation leadership laba su'aalood baa doonaya halkaas saaran kaa weydiiyo iskuullada iyo waxbarashada Bristol iskuullada Bristol iyo hoggaanka Bristol ee carruurteenna ay mas'uuliyad ka saaran tahay waxbarashadooda sidee bay arrintaa indhaha ugu hayaan runtii laba jaamacadood waaweyn ayaa Bristol ku yaala waan hubaa inay research gacanta ku hayaan laakiin xaggii iskuullada hoggaankii iskuullada hoggaankii kale dowladda hoose dhinacii hadday noqoto hal abuurnimada sidii looga faa'iidin lahaa iyo innaga laftigeennu bulshada iyo waalidiintii sidee baa laynooga baahan yahay inaynu hoggaan hal abuurnimo la nimaadno oo aynu la jaanqaadno ugana faa'iidaysano waxaan iminka isbeddelkan yimid haddii markaad fiirisid waxbarashada reer galbeedka waxaa la yidhaahdaa literatureka markaad fiirisid laba arrin ayay horumarisaa laba arrin oo keliya ayay horumarisaa ayaa lagu xantaa mid waa in ilmaha uu gaaro isku filaansho uu gaaro dhaqaale wax kasta uu isku filaansho isaga gaaro tan labaadna waa inuu noqdo mid lafagur badan critical maaqaan Soomaaliga sida uu yiraahdo critical inuu noqdaa oo wixii loo sheegay qofka qaadan qof si togan wax u dhaliili kara u falanqayn kara marka labadaas ay horumarisa ayaa la yiraahdaa waxaa lagu xantaa inaysan horumarin wax la yiraahdo humanity ma horumarisa la yiraahdaa marka bulshada aan ku noolnahay iyo reer galbeedka maxay u badan yihiin waa individualistic waa mid aniga danteeda aniga marka aniga waxay ila tahay in Soomaalida iyaga isku tashtaan oo sida aad sheegaysid hal abuurnimada ay la wareegaan ay iyaga gacanta ku qabtaan ownership ay gacanta ku qabsadaan iyaga oo ay ahayto hogaamiyaan wixii dantooda ah ay hogaamiyaan ayaa aad muhiim ah hadda sanooyin ka hor waxaan tagay ahayto aan waalid u raacay Brian schoolka la yiraahdo oo ilmaha ahayto nusqaanta ah ay wax lagu baro markaan meesha tagay ninkii maamulaha ahaa ayaan weydiiyey meeqa canug oo asalkooda Soomaali yahay ayaa meesha dhigata markaasuu yiri iyaga ugu badan markaasaan iri xagee ka yimaadaan markaasuu yiri eriyada ahayto u dhow oo centerka u dhow Bristol ayay ka yimaadaan yiri marka waxaan is weydiiyey sidee ku dhacday marka carruurta aynu u faahfaahino dadkaan dhegeysanay carruurta nusqaanta leh waa carruurta ma physical disability ma nusqaan dhinacii jirka ma maskaxda mise waa dhinacii barashada dhinacii maskaxda ee barashada okay cognitive okay waxbarashada ilmihii nooc kasta ay tahay waxyaabaha la yiraahdo ahayto autismka la yiraahdo waxyaabahaas oo dhan markaan meel tegay oo jaamacadda Bristol iyo kuwa kale ay ka hadlayeen caafimaadka iyo waxaas iyo markaasaan weydiiyaan idinku autism ayaad ka hadlaysaan anaga ummadda aan aniga ka dhashay ayaa ugu badan markaan tegay Brian school idinka xilaa idinka saaran magaaladii waa jaamacaddii Bristol degantihiin
baaritaan ma ku samaysaan waay soomaalida ay ugu badan yihiin maxaa ahayto cudurkan ugu badan yahay soomaaliya markaan joognay waa dhici kartaa inay jiraan laakiin sida ay yihiin ma ahaan marka runtii waxay ku dhalatay ana naftarkeyga maxaa ahayto inaan xoogaa dib isugu noqdo aan isweydiiyo su-aashaas marka waxyaabahaasoo kale ayaa loo baahan yahay annaga dadkeenna inaan gacanta inta ku qabanno aanan la sugin dad kale la sugin aan maxay aan la nimaadno markaad la timaadid waxaa laga yaabaa in lagu qiimeeyo laakiin haddii aad sugtid dad kale aniga waxaan isleeyahay ama laga qurxun yahay absolutely intaanan runtii ahaa dad badan baa halkan waxaa naga soo weydiinayaa fadlan noo soo qora su-aalihiina waan weydiin doonaa cabdi adeerow soo qor su-aashaad u baahan tahay waan weydiin doonaa dr shamsudiin waa runtaa waxbarashada markuu ilmuhu qaadanayo la barayo waxa la yidhahdaa waxna waa knowledge thinking inuu ilmihii wixii fahmi karo waxna waa knowledge transformation oo wixii midho ka dhalin karo runtii innaga dhaqankeenna waxaad moodaa weliba habkii waagii hore wax laynoo soo bari jiray ee ahaa in ilmaha wax loo sheego uun ayaynu halkan nala nimid marka sida aad sheegtay in ilmihii uu si togan wax u dhaliili karo oo critique samayn karo markaynu wax dhaliilayna dhinacan taban baynu ka qaadanaa laakiin in dhinacii tognaana oo wixii la falanqeeyo oo ilmihii wax kasta waa sida aad sheegtana yani waxay ka dhigtaa shakhsigunbay ku kobtaa waa individualistic halka aynu inagu raasimaalada aynu leenahay isku xirnaanta oo runtii marka imika laga hadlayo covid-19 waxyaalo badan inaga badbaadiyey runtii oo haddii caafimaadkii maskaxda noqon lahayd oo kale waay waynu isku xidhannahay inkastoo ay dhinaca kalena de kolley wax walbo bini aadam sameeyaa ay nusqaan leeyihiin marka taasina iyaduna waa halkeeda haddaba sidee baynu marka laga hadlayo hal abuurnimada ama wixii wax laga soo saarayo waxaan innovationka loo yaqaan iminka adduunyada dhan waxay ka hadlaysaa innovation weliba waxaynu ku jirnaa casri technologygii dee uu ku socdo xawli waxaana iminka dadkan ka hadla technologiyada yidhahdaan covid-19 waxa uu soo dedejiyey qorshihii la islahaa waxa la gaari doonaa 2030 10 sano kadib ayaynu maanta keenay haddaba shirkadahoo kale ama dee shakhsiyaadka shirkadaha waxa lagu tilmaama qaarna waxa la yidhahdaa waa fast followers wax ma keenaane waxaa la keenay bay degdeg ula socdaan waxaana ka mid a runtii marka laga hadlayo apple oo adduunyadoo dhan hogaamiyey waxa laga yaabaa inaanu waxyaala khatara ikhtiraacin laakiin waxa la keena ayuu wax ka soo saarayo isla markiiba suuqu qabsadaa haddaba inagu dhinacii bulshada weliba hay-ado waxaynu leenahay ku howlan arrimihii bulshada inagoo ganacsiyaynu leenahay runtii inkastoon jeclahay arrintaa ganacsiga inaan habeen gaara iyadana ka hadlo waxaan ka dhinacii waxbarashada oo ah midho ka dhalinta innovationki hogaamin noocmaa ayaa la inooga baahan yahay inaanu la nimaadno oo aynu weliba ama haldoorkii bulshada ha ahaado aynu waalidiintii ugu dhiirigelino say xitaa ilmihii midho dhalin u yeeshaan u fakeraan yaraan war waxaan see baynu uga faa'idi karnaa waa runta innovationka waa ku dambaynaa sida aad sheegaysid codkaa kor yar qaad waa ku dambaynaa innovationka sida aad sheegaysid haddaad fiirisid hadda kasoo qabo waxaa loo baahan yahay aqoonta waxbaridda sideedaba annaga waagii aan waddanka joognay waxaan u haysanay xifdi inay tahay xifdiga ma aha waa in wixii la fahmaa oo fahmaa canugii oo ku dabaqi kariyaa wadci kale haddaan aniga iska soo qaado aniga dugsigii hoose dhexe waxaan kusoo dhigtay casbo balaare ee degmada hodan ee soomaaliya ee muqdisho xisaabta waa ku wanaagsanaa marka lay dhigo 2 loo qeybiye 3 lagu daro 5 loo qeybiye 4 waxay ahaataba degdegaan ugu shaqayn jiray laakiin waxaas waxa ay yihiin ma fahamsanaa markaan inta imiday oo aan tacliintii aan galay oo aan arkay sawir ahaan wixii oo ama sida biitsaha oo kale loo kala gogoynaayo oo maxay ahayd jajabka fractionkii iyo wixii aan arkay ayaan fahmay waxa ay yihiin marka aqoonta maxay ahayd ma aha un xifdi ma aha xifdiga looma baahna innovationka marka ay maxay ay timaado xifdiga mar loo baahan yahay ayaa jira xifdiga waxa loogu baahan yahay isku dhufashada oo kale time tableka oo kale xifdiga waa loo baahan yahay laakiin badankeed looma baahna waxbarashada waqtigan casriga ah looma baahna in wax la xifdiyo
marka innovationka taas ayaa horta anaga waalid ahaanba markii hore ayaan barashadeennii ay ku liidatay inaan innovation sameyno hadda la joogana carruurtii marka luqadda ay soomaaliga ay ka tagayaan oo ay luqad kale ay tagayaan oo luqadooda ay dhumiyaan abilityga awooddii maxaa ahayto ay ku samayn lahaa innovationkana waa yaraanaysaa marka haddaad fiiriso carruurteenna oo kale marka la yiraahdo qor sheeko qor la yiraahdo oo kale ma qori karaan waxaysan u qori karin luqaddii oo xoogaa isbedeshayna waa haysaa tan kalena oo aad loogu baahan yahay oo aan filayo inaan waalidiinta ay ka gaabiyeenna waxay tahay in carruurta sheekooyin loogu sheekeeyo guriga sheekooyinkii annaga waxaan ku wanaagsaneen taasaan ku wanaagsaneen sheekooyin ayaa naloo sheegi jiray oo eedooyinkii ama ayayooyinkii ay noo sheegi jireen habeenkii ama waqtiga ahaataba ay noo sheegi jireen africa waxay lahaayeen afrikada galbeed iyo meelo ka mid a waxay lahaayeen inay dab shitaan habeenkii oo lasu yimaado oo sheekooyin lagu sheego marka taasna aad ayay ilmaheena ugu gaabiyaan marka waxaad arkaysaa sheeko xataa haddii inta loo sheego oo dhexda inta la geeya la yiraahdo dhamaystira ma dhamaystiri karaan maxaa yeele waxaa ka maqan innovationkaas samayntaas ayaa ka maqan oo aysan kusoo qaadan waayo aragnimo ay u lahayn iskuulkana ma samayn kariyo mar walba waxaasoo dhan sheekooyin ma sheegi kariyo laakiin guriga sheekooyin badan oo kala gedisan haddii loo sheego aaday maxaa u anfacaysaa walow haddana dhibkii u yimid waalidkii iyo ilmihii oo xoogaa luqaddii haddana aanan fahamkii haddana uu xoogaa dhibka taagnayn aad baad umahadsan tahay dr shamsuddin waa run waa arrimo aan jeclahay runtii inaynu doodo intan ka ballaaran oo ka qoto dheer aynu samayno weliba kamida dhalinta waxbarashada kobcinta xirfadaha sidaa aad sheegtay dhaliisha togan critical analysis iyo dhaliil togan adoo aan ka dhexgale hadda koora waxaa dhacday maalin meel anu shay ku cabaayo nin oday oo magaaladan jooga ayaa meesha lagu sheekaysanaya markaasuu wuxuu yiri carruurtayda waxay bilaabeen markii aan waxa sameeya aan idhaahdaba inay yidhahdaan waay i yidhaahdaan markaasaan waxaan inuu yiri qofkii mar damba waay i yidhaahda dhar ciid uma gadaayo markaasaan iri warbay saas mee carruurtan waxaa lagu baraa iskuullada lagu baraa inay critical noqdaan marka waa taas iyadana way jirtaa taas waxay kobcinaysaa in ilmihii dee uu dhinacyo ogaada waxa uu qabanayo sababta waxaan u qabanayo in loo sharxo inta waxaa laga yaabaa maanta inaynaan lahayn markaan ka hadlayo qurbahoo kale ama xitaa ganacsiyadeenna dibadda iyo waddankiiba waa laga yaabaa inay qaarkood yihiin waxyaabaha jira inay markiiba ka faa'iideystaan fast followers ay noqdaan taasina waa mid caadiya oo saan soo sheegay markii dhaweydba waxaana jecelahay inaynu si qoto dheer marar dambe oon weliba adag iyo niman kale oo khibrad u leh aynu falanqayno bal midha ka dhalinta hal abuurnimada hal abuur markaynu maqalno waxaynu u naqaanaa uun gabyaa iyo mataqaanaa qoraa runtii alxamdulilah wa maasha allah aad baynu xagga uga horumarsannahay gabayada waxaad arkaysaa intaasoo inan hablo rag iyo dumar oo dhalinyaro ah oo runtii hal abuurra cajaa'iba laakiin dhinacii hal abuurnimadii kale habeen dhexdaasaa nin gabiyo labsaalax la yidhaha wuxuu lahaa waxaan nahay buug sigta ya iyo waxaan nahay isticmaalayaal un mobilkiina isticmaalayaal baynu ka nahay runtii marka laga hadlayo social innovationka waxyaalaha lasoo qaato waxaa ka mid ah Aravind Eye Hospitals oo nin dhakhtara oo runtii imika dadka waxa lagu daweeyaa hay-addii uu sameeyey waxa lagu daweeyaa dadka aan awoodin inay lacag iska bixiyaan marka bal inagu qurbaha markaynu joogno arrimaha bulshadeen xoog uga shaqaynaa oo aynu hay-adaheena yaryar ku bilownaa runtii marka bal waa arrin aan doonayo in aynu si qoto dheer uga bilaawno oo xaggii social innovationka mar maxaynu soo kordhin karnaa adeegyo noocmee ah oo dadkeenna dhaqankoodii la halmaara ummadda kalena aynu u horseedi karno hoggaanka u qaban karno aynu keeni karna waa arrin u baahanay ugu dambeyntii dr shamsuddin caawa covid-19 saamaynta waxbarashada uu ku yeeshay waa adigaa ka hadlay waxbaristii iyo barashadii ciyaalka soo waxbaranayeen
hooyo waalidkii baan u jeedaa iyo bulshadii talada ugu dambaysa fariinta ugu dambaysa caawa kaga tegayso bulshada Soomaaliyeed maxay tahay bulshada Soomaaliyeed fariinta aan ugu tagay waxay tahay inay isku duubnaadaan oo ay iska warqabaan taasaa muhiim ah nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri haddii aad rabtaan inaad isjeclaataan afshu salaam salaanta badiya isa salaam markii ummadda ay isku timaado iswaraysato ayaa runtii meel la gaari karaa oo waxyaabo badanna ay noo suurageli karaa magaaladan Bristol ahaan sababtoo ah anagoo u badan darteed haddii aan xooga saarno waxyaabo badan innovationka iyo waxyaabo badan oo rag badan in la isku yimaado ula badsado arrintaas wax baa laga qaban karaa isleeya cabdi marka isku duubnaanta aad baad u mahadsan tahay Dr. Shamsuddin runtii reer Bristol waxyaalaha aan ku ammaano waxa ka mid ah marka waxyaalaha sidan oo kale dhacaan waqtiga adagoo kale la yimaado waa la isku yimaadaa runtii sanadkii hore March markii ugu horeysay lockdown-ka aynu galnay runtii waxa soo group baa la sameeyey ilaa iminkana ay laga shaqeeyo oo ay hay'adaheena qaarkood dadkeena waaweyn guryaha ugu tagaan cunto u geeyaan shopping u soo sameeyaan dawooyinka u soo qaadaan kana war hayaan inteena tabarta daran runtii waa arrin aan ku ammaano Soomaalidu waxay tiraahdaa qodaxi meesheed marka ay wax dhacaan waxaad moodaa siyaasadda iyo waxa jeebka la geliyaa dhinacii humanity waana muhiim waana runtii mid aan bulshada reer Bristol aad ugu ammaano waana wax dhacaan absolutely wax laga yaabaa dhowr jeeraan aniga waxaan joogay school oo sidaas oo kale waxyaabo aanan la jeclaysanin macnihii dadka isgursanayo oo isku labka iyo guddiga isgursanayo sanooyin ka hor hadda 12 sano ka hor waa barayna intii yiraahdeen lisu yimidayo aad lisugu duubmayo kaale arag Allah waynu ku fiicannahay shaqaaqda soo arag in la kaco markii wax dhacaan runtii inta kolley wax kastoo bini aadan qabto waxbaa ka dhiman insha Allah waana sii wadi doonaa insha Allah aad baan kaaga mahad celinayaa waynu isku soo noqon doonaa barnaamijyo kale oo joogta oo aynu doonayno waliba dhinacii waxbarashadu waa asaasi waa lama horaan adduunyada waxaanu joognaa waxbarasho inaan wax barano oo dhinacii diintiyan baa laynoogu sheegay يا أنا متقنع عيد والبمان هذا سيكتو اقرأ باسم ربك أبو كورونا يا اقرأ هذا فيرس هذا فيرس نفس كذا اقرأ يوح برشة إن اقرأ باسم ربك اقرأ وأقرأ سوما اقرأ أقري مركات فيرس الريسيرجيجا وحد أركيسا قفك بني آدم كأه أقرنت إن لبرماهي ومعلم برماهي إسكما برت لكن قفك واحد لا هذا لما بر عنق يروى إسكسو استاجا وابرتا لكن أقرنت وإن معلم أوبرا مركو جبريل عليه الصلاة والسلام فيه مدين أويري اقرأ محجر النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقاري قف وحقري يمئي مركو حلو لي مسكح ذا مرها قيب oo loogu talagalay ilaahay ugu talagalay qoraalka iyo aqrinta ugu talagalay Shamsuddin halka aad marayso waa wixii aynu ka hadlaynay hal abuurnimada inaynu marka qaar kood hal abuurnimada wax la yiraahdo dhibcaha inaad isku xidho war inaynu fahanno inta yaraynu isticmaalno exactly marka wax kale loo baahan marka fiiris ilaahay iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam إلهي قريتان قلم كذا كبر. بس محلور مرسية قرالك أقرنتي كدمنا قرالك. ريسيرشي دواء وقتها ضب لسمي وحلق وقاعد يقفك إلا أوحك أقري إنه صنوح أقري كريم. أي اللي أقري. مرك إلهي موصل لهن الذي علم بالقلم قبل كم لهن اقرأ. حكمت أيها كجرت اقرأ يا لير كذب لير علم بالقلم علم الإنسان أنا كرينا ما أهم مسلمين مسلمين تقرن أيها محايتو عرنت هدي يكفى إذا يصير لها يعني على أبور كاس أتشيء يسمر نبعاس نسكحر ولا غصب بليه وحبي هلا لا هاي نقدر نقول كوع حكمت فهمة كنت مريكا كاركود وحنا نهاي محلو نشرين
dameer malab xambaarsan ilaahay ilaahay ha inaga dhigo kuwii ka faa'iidaysta adigana aad baan kaaga mahad celinayaa insha allah barnaamijyo kale oo xiiso leh isku soo noqon doonaa dhammaantiinna waan idin wada salaamayaa intii su-aalaha na soo weydiishay intana soo saartay aadaad u mahadsantihiin dhammaan dadweynaha nagala qayb galay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته